عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواada channelka Samadoor waxaan halkan idinku soo gudbinayaa dhowr indhasarcaad oo cajiib ah anigoo daaha ka qaadi doono sida loo sameeyay iyo qiyaanad ka dambeysaba indhasarcaadku waa xirfad la barto una baahan maskax dadaal iyo joogteyn dheeriya ku darso indhasarcaadku maahan wax xaqiiqo ah balse waa xirfad la geliyay juhdi badan markii la soo bandhigayna loo soo bandhigo si ka baxsan kana sareysa sida caadiga ahayd waana sirta ka dhigaysa ficiladan kuwa wax ku oola oo indha badan soo jiita una ekeynaysa wax xaqiiqo ah ama xaqiiqda u dhow waxaan maanta ku qaadaa dhigaynaa oo soo qaadanaynaa laba kamid ah indhasarcaadyada cajiibka ah ee inta badan dadku u dhab u qaataan balse ka duwan oo ah kuwa sahlan anagoo daaha ka qaadayno sirta ka dambaysa iyo sida loo sameeyayba taasoo sahlayso in adigan hadda muuqaalkan daawanayo aad samayso markii aad dhamaysato muuqaalkan alla idankii intaanan u gudagelin mawduuceena maanta fadlan haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow oo subscribe galee channelka si aad ula socoto muuqaalada kan xiga ee xiisaha badan leh mahadsani haatanna ku soo dhawow muuqaalka ugu horeeya mawduuceena muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sida idin muuqataba qoorjabin ama madax raaricin madaxa ayaa booskiisii laga bedelayaa oo hoos loo dhigayaa haddana si aan dhib lahayn ayuu booskiisii hore ugu celinayaa hor intaana sharxin sida loo sameeyay soo daawo muuqaalka haddaba ma isweydiinaysaa sida loo sameeyay waatana sirta ka dambaysa iyo waxyaabuhu adeegsaday ninkan indhasarcaadyahanka ah wuxuu soo qaatay birta dharka la surto oo laba ul ayuu geesaha uga xiray sharootana uu ku dhajiyay wuxuuna dhex geliyay jaakada iyo shaarka dhexdooda jaakada iyo shaarkuba waa kuwo fitaaha una sahlayo inuu hawshiisa guto intaas kadib wuxuu gacantiisa midig ku qabanayaa qaybta hoose ee birta ee ku jirta jaakada iyo shaatiga hoostooda wuxuuna si farsamaysan oo degdeg ah kor ugu qaadayaa birta si lamid ah gacantiisa bidix ayuu ku qabanayaa madaxiisa taasoo ka dhigaysa inuu madaxa celinayo markay halkaas joogto wuxuu haddana gacantiisa bidix ee uu awal ku hayay madaxiisa kor ugu qaadayaa madaxii booskii horena ku celinaya waa inta oo kaliya isku day waa samayn kartaa muuqaalkeena xiga wuxuu ku saabsan yahay cusbo qarinta ninkan labadiisa gacmood ayuu mid kamid wuxuu ku shubayaa cusbadaas hadhow dib ku gacantiisa kala qaado waa la weynayaa cusbadii waa qarsoomaysaa haddaba waxaa eegaynaa sida loo sameeyo sirta muuqaalkan ka dambaysa ayaa ah wuxuu xiran yahay suul beena haddii aaba si fiican u fiiriso gacantiisa waxaa ku jira suul been ah tartiib ayuu gacmihiisa markuu sameynayana wuxuu sameynayaa tartiib ayuu gacmihiisa ku wareejinayaa suulkiisa calaa cashir gacmaha faraha dhexdoodana ayuu suulka gelinayaa tartiib ayuu suulkii beenta u siibayaa cusbadana waa ku dul shubayaa markuu cusbada ku dul shubo ayuu haddana si farsamaysan oo degdeg ah wuxuu gacantiisa kala suulkeeda u gelinayaa suulkii feega ahaa ee calaa casha kale ku jiray calaa casha bidix ku jiray kadibna haddana siduu u soo celiyo wuxuu gacantiisa ku celinayaa oo haddana dhex dhigayaa farihiisa dhexdiisa suulkii uu siibayaa haddana gacantiisa kale ayuu cusbadii ku shubayaa waana intaas oo keliya waa samayn kartaa ee isku day waxaan rajaynayaa inaad muuqaalka ka heshay haddii aad ka heshay fadlan like saar channelkana subscribe garee si aad ula socoto muuqaalada xigo ee cajiibka ah sidoo kaleeto haddii aad doonaysid inaan kuwaan soo badino commentiga ku soo qor noo soo badi insha allah waa isku dayayaa inaan soo badiyo haddaan ugu cusub tahay subscribe calaamada guduudka subscribe saaw baleerkana furo sida u noqoto daawadaha ugu horeeya mahadsanidin haddaan ugu cusub tahay subscribe calaamada guduudka subscribe saaw baleerkana furo sida u noqoto daawadaha ugu horeeya mahadsanidin